Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Khiyaarteeda sida uu idishiinba kusoo dhawaada mar kale iyo Arsenal iyo wararkeena maanta aan idin hayo. Fadlan haddii aad channelka subscribe inoo saar oo ka mid noqo asxaabta koreysa ee Arsenal taageerayaasheeda ah. Haddaba aan ku bilaabnay ciyaaryahankii Declan Rice ayaa maanta waxay noqonaysaa maalinkii ugu weyneed ee noloshiisa. Arsenal iyo Manchester City ayaa isla maanta waxay bandhigayaan lacag. Arsenal waa markeedii saddexaad ee lacagta ay bandhigayso. Sidoo kale Man City ayaa iyaduna ah markii ugu horeysay ee lacag iyadana bandhigayso. Kulley waxaan u maleynayaa Arsenal daahnideeda ayay ka aragtay waxay meesha u soo gashay. Waxay is leedahay ciyaaryahanka Arsenal waa ka dulqaadi kartaa. Sidoo kale wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inay Man City aad ay ugu dhowdahayba in ciyaaryahanka ay heshiiskiisa ay dhamaystirto, kalsooni aad ana ku qabto. Hase ahaatee weli lacagta maysan bandhigin, waa lacag ay diyaariyeen oo isla maanta laakiin ay bandhigayaan. Ana ogaan doono waqti maanta xilligeeda dambe aan ogaan doono ciyaaryahankan halka uu ku dambeeyo. Ma Manchester City mise waa Arsenal waa mid aan arki doono maanta ciyaaryahanka. Runtii ciyaaryahanka ayaa ilaa hadda club uusan doortay aana jirin oo uu yiri clubkaas aan aadaya. Hase ahaatee warkiisa wuxuu ku cadeeyay in uu ciyaaryahanka uusan ka tegaynin England club-yada ka dhisan mooyaane inuusan meel kale u soconin. Sidoo kale isna Man United ayaa raadinaysa ciyaaryahanka oo isha ku hayso. Marka waa arki doonaa ciyaaryahanka warkiisa halka ayuu marayaa. Maanta ay Arsenal iyo City lacagtaas ay bandhigayaan, waana arki doonaa cidda ku guuleysato oo Declan Rice dhankeeda u soo badiso. Runtii fanska ay aad u xanaaqsan oo Arsenal aad ugu xanaaqsan waxay leeyihiin sababta Arsenal ay uga bixin la'dahay 100 milyan Declan Rice waa maxay. Waa ognahay way leeyihiin in heshiiskan oo kale uusan si fudud uusan ku dhicinin, laakiin markuu ciyaaryahan sida u fiican uu yahay, dadka kugula dhaganna ay yihiin rivalskaada iyo dad kula xifaaltamayo oo aad doonayso inaad koob aad ka qaado, inaad 100 milyan aad ku dhadhagto adigoo waliba budgetka haysatid, lacagtaan haysato, aad bay ceeb ugu tahay ay leeyihiin Arsenal. Marka Arsenal taageerayaasheeda waxay aad u guubaabinayaan in ay Arsenal Declan Rice ay iyadu soo qaadato oo gacanta Man City inta uusan ku dhicin ay la soo wareegtay ciyaaryahankaas. Hadee waa arki doonaa halka uu ku dambeeyo Declan Rice. Sidoo kale iyaduna waxa aad u wareeganaysa ayaa leeyahay lacagtii Arsenal ay u diyaarisay ciyaaryahanka Timber. Isna lacag ay u diyaarisay ilaa hadda lama xaqiijin lacagta ama 40 milyan ba ama 45 milyan ba ama 35 milyan sida ognahay. Arsenal ciyaaryahankaas Ajax ay u bandhigtay lacag 30 milyan ah, isla markiina waa lagu soo celiyay. Wada hadal ayaa socday maalmihii aan soo dhaafnay, labadii maalmood aan soo dhaafnay. Haddana waxaa leeyahay iyadana Arsenal mar dhow iyadana lacagtaas ay bandhigi doontaa ciyaaryahankan Timber ee difaaca ee daadka u dhashay ee da'da yar in ay ku soo qabato. Isna ciyaaryahanka halka ayuu maraya. Sidoo kale Romeo Lavia ayaa isna waxaa la sheegay Arsenal marka ay Timber iyo Declan Rice ka soo dhamaato in asagana uu noqon doono ciyaaryahanka afraad ee ay la soo wareegi doonto. Walina kamaysan bixin ayaa leeyahay Arsenal aad bay ciyaaryahanka u daba taagan tahay oo u doonaysa. Sidoo kale Fabrizio Romano waxa uu soo xaqiijiyay in Juventus ay raadinaysa ciyaaryahanka Partey kadib markii ay kalaabyo badan oo Sacuudiga ciyaaryahanka soo cabsaday uu ka aamusay. Kalaabyada Sacuudiga ka dhisan ayaa lacag 40 milyan ah soo bandhigay, taasoo si installment ay ku bixinayaan. Hase ahaatee haddana waxaa leeyahay ciyaaryahanka maadaama uu door bidahay inuu Yurub wali uu ka sii ciyaaro, Juventus ayaa meesha soo gashay oo Arsenal wada hadal kula jirta. Isna waa arki doonaa ciyaaryahankaas halka uu ku dambeyn doono. Juventus buu aadi doonaa mise lacag buu raadin doonaa meelaha Sacuudiga ayuu aadi doonaa. Iyaduna taa waa mid aan arki doono. Hase ahaatee warkeena maanta ugu weyn ee aan sugayna waxa weeyaan in ciyaaryahanka Declan Rice aan arki doono halka uu ku dambeeyo. Labada team ee Premier League saacadan la taagan yahay rivals isku ah ugu waaweynba, maadaama ay Man City ay Champions League qaaday ileen team weyn bay noqotay. Hadda waa ka baxday, carruurnimadii way ka baxday.
marka waa arki doonaa Arsenal iyo maartay Man City cidda ku guuleysatay ciyaaryahanka soo qaadato mid waa la hubaayo laba Arsenal haddii ciyaaryahanka ay soo heshay sanadkan in ay maartay noqon doonto tiimka labaad ama tiimka koowaad ee Yurub oo xooga badan marka ciyaaryahanka waa arki doonaa maanta waxa ay sameysay Arsenal runtii idinka ayaan jeclaan lahaa inaan fikradiina aan maqlo maxaad ka leeyihiin Arsenal ciyaaryahanka ma u qalma inay 100 milyan ka bixiso ciyaaryahanka ka warrama 100 milyan soo waxa leeyihiin 100 milyan meel kale Arsenal hala aado laba ciyaaryahan buu u goosay laba ciyaaryahan oo kale ku raadiso marka khiyaari waxaan jeclaan lahaa taana inaan aan maartay commentiga aan ku arko iyo waxa aad maartay fikradda aad ka qabtaan haddana wixii war oo soo gudboonaada insha Allah waa in la soo socodsiin doonaa waxaan idinkaga tagay sida nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.